بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كنا سو دوادا warkii telefishinka qaranka Soomaaliya oo idinkaga imaanaya stuudiyaha telefishinka uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya warkana waxa idila socodsiin doona anigoo ah Cilmi Maxamed Waare qodobada ugu doorka roon warka waxa kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dib u dhac uu ku yimid qorshihii maanta lagu doonayay in baarlamaanka lagu horgeeyo golaha wasiirada cusub si ay u ansixiyaan iyadoo baarlamaankana uu sii watay maanta kulamadii uu uga doodayay qaar kamid ah qodobada ku jira xiroosaadka manaan baxbalaaran oo lagu taageerayay xukuumadda cusub oo dhawaan ra'iisul wasaare Saacid uu soo dhisay isla markaana mudanayaasha baarlamaanka looga dalbanayay inay ansixiyaan ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya maamulka jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa maanta sheegay in markii ugu horeysay jaamacaddu xafiis ay ka furatay dalka dibadiisa waxaana ay ka furatay dalka India isagoo xafiiskaasina qaban doono howlaha kala duwan ee jaamacadda ay leedahay maxaabiista ku jirta xabsiga magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa maanta waxaa loo fidiyay adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah waxaana uu fidiyay mid kamid ah maamulka iyo shaqaalaha isbitaalada ku yaala magaaladaasi kulan looga hadlayay sidii la isaga kaashan lahaa ammaanka gobolka Bari ayaa maanta waxa magaalada Boosaaso ku yeeshay maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale qaar kamid ah nabadoonnada gobolka howlgal lagu soo qabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa maanta waxa laga sameeyay degmada Goldoob iyadoo markii ugu horeysay ciidamada la dagaalanka gixisada ee Puntland ay xafiis ka furteen degmadaasi wafdi ka socda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa gaaray magaalada Juba ee xarunta koonfurta Suudaan halkaas oo ay ka fureen xafiis dadka Soomaalida u fududeyn doona helitaanka baasaboorada Soomaaliya wararka caalamkana waxa ugu weyn madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu maanay madaxii sirdoonka CIA-da dalka Mareykanka General David Petraeus oo iscasilay kadib markii uu qirtay inuu xiriir lahaa haweeney aan ahayn xaaskiisa daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona warka haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan